khamiisaha iyo jimcuhu saa awgeed kuma aha waqtina siino ee waxaa ka dhigataa waqti aad dib u muraajacayso casharkii aa macalinka ka soo fahamtay isla maalinkaas la dhigay aad 10 daqiiqo soo siisay maalinka khamiisaha iyo jimcaha dib u soo muraajacee kadibna waxaa samaysataa buug yar oo note ah in la weynaayo u malayn maayo waa la heli karaa bugaagta yaryar ee note-ka kadibna waxaa samaysaa wax kastoo muhiim ah u aragto su'aalaha hadday noqdaan qodobo kale ama nuqdaad kale oo macalinku uu dhahay afka ka sheegay waa muhiim waxaasoo dhan adigu soo noodgaree dib u qor marka qofku haddii ardaygu uu macalinka focuska saaro xisada marka la joogo 10 daqiiqo xaafadda uu ku akhriyo casharkii isla maalinkaasoo uusan dib u dhiganin khamiisaha iyo jimcaha uu dib u soo muraajaceeyo waxay noqonaysaa week kasta inuu saa sameeyo bishiina waxay ka kooban tahay 4 week afartaas week markay dhammaato weekga u dambeeyay bisha waxaa samaysaa casharadii oo dhan dib u soo muraajacee bisha iyada ha dhammaato mid cusubna ha kuu bilaabato adigoo bishii hore ka soo faa'iidaystay oo wax wanaagsan soo dhigtay oo ka faa'iidaystay waqtigaagii hadday xisadaha gudaha noqoto hadday bannaanka xaafadda noqoto iyo haddii si gaara maalmaha khamiisaha iyo jimcaha ay noqoto waxaan intaas kusii daraa marka ardayga sidaas u dadaala ee xisada saa uga faa'iidaysta ee khamiisaha iyo jimcaha saa uga faa'iidaysta ee maalmaha kale casharada uu qaadanaya sidaa uga faa'iidaysta ee bishii saa wuxuu xira halka shay u dhiman waa inuu sameeyo imtixaanka finalka bisha la gelayo waa taqaanaan soo maaha bisha iyada waxaa isku daydaa wiiga maamulku uu soo dhajinayo jadwalka imtixaanka adigu wiiga ka horeeya waxaa go'aansataa inaad jadwal sii samaysato fahmaysaa oo aadan sugin jadwalka maamulku uu soo dhajin doono imtixaanku siduu kala horeyn doono kaas aadan waxba ku akhrinin midka ka horeeya wiiga ka horeeya samaysa jadwal maadooyinka usoo horeynayo kollayto waa la qiyaasi karaa usoo hormarso kadibna wiiga maamulku uu jadwalka imtixaanka soo dhajinayo adigu imtixaan diyaar u ahow waxaa hubaala wiigaasi ama isbuucaasi ama toddobaadkaasi waa toddobaadka ardaygu ugu walwalka badan yahay wuxuu ka fikirayaa imtixaanka maxaa keeni doontaa ani waxaan hubaa marka ardayga sidaas usoo dadaalay ee qaabkaa u dhaqmay inay aad 100% u fududahay inuu imtixaankaa ku guulaysto natiijo wanaagsan oo la taaban karana uu ka keeno arday wadadaas mara oo fashilmaaya ma jiro waayahay waxaa jira marka hal tusaale kooban oo shaqadaas iyada lagu tusaaleeyo caadi ahaan qofka bani aadamka wuxuu leeyahay jadwal dhanka cuntada tusaale qof wali markuu xaafadda ka tagayo waxa laga yaabaa subaxii inuu soo quraacdo soo maaha dooradii marka halkan ka tagto xaafadda inaa qado u tagto habeenkii marka la gaarana cashadii xilligaas qaadato waa 3 waqti oo sida aqlabiyada ama majority-ga dadku ay jadwalka cuntada qaataan qofka marka sidaa uga faa'iideysta waa sida qofka aan soo sheegay ardayga aan soo sheegay ee xisada macalinka focus ka saaray ma fahmaysaa 10 minutes xaafadda ku muraajaceeyay week kasta dib u sii muraajaceeyay casharada bishu markay dhamaatay iska xiray teeramkana markuu soo dhawaado bisha u dambaysa sidaas u dhaqma Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa